Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabteyda kusoo dhawaada channelkeyga Nahyan Cooking. Macluumaad waxaan idin sidaa saake, waxaan idin wadaa alaab yar, juice iyo maxaa la dhahaa cabitaan iyo isqurxin waaye ma garateen. Waxaan halkan ku haystaa qajaar, waa soo kala jaray qajaarka laba qayb aan rabaa inaan u isticmaalo. Waa soo kala jaray qajaar ama qajaar lagu aqaana aniga English maxaa lagu dhahaa cucumber ama qajaar, labadaas lagu aqaanaa. qayaarna dada dhahaa umaleyna qayaar miya dada u yaqaan, laakiin aniga qajaar la u aqaanaa. qajaar qof aan aqoonin ma lahana ila tahay. jeexan waxaan u isticmaali rabaa kareema ka sameyneynaa. jeexan kalena oo weyn juice ka dhiganeynaa ama cabitaan. hadda jeexan yar waa soo hoolayaa bahashan qudaarta lagu hoolo iyo kaarotka iyo qudaarta lagu hoolo ku soo hoolayaa. qaybta yar yara isticmaalaya because biyo uga baahanahay, marka shayga biyo uga baahantahay qaybta yar yar isticmaal insha Allah. qaybta yar yara isticmaalaya birta wax ku hoolaya insha Allah. hadda waa soo hoolayaa kan yarka waa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabteyda waa soo miiray qajaarkii, yani waa soo hoolay ama waa soo xoqay taqaanaanba saas uu noqday. hadda biyahan ka rabnaa waa soo miirayaa. soo aragtaan biyo haystaa qajaarka. hadda waxaan kusoo shubayaa shaandamiir, waa soo miirayaa biyihiisa u baahannahay. hadaan ku shubayaa waa miirayaa. markaa soo miiro isku soo laabanayna insha Allah. asxaabta waa soo miiray qaybta yareed waaye, cadka yaraa ama gabalka yaraa waaye. hadda biyaha meeshaan ku haysto wax biyo kuma darin, qajaarka biyihiisa la waaye. waa soo miiray shaandamiiraan ku shubay, qashinka iyo biyahan kala reebay. inta biyihii ku haystaa qashinka waa iska daadiyay. intana waa qaybta kale oo weyneed, cadka kale weynaa waaye. waxaan ka rabnaa juice ka sameyneynaa. qaybtan waxaan kusoo shubayaa blenderga, waa soo shiidayaa insha Allah. tanna raggan waxaan ku haystaa digsi, waxaan kusoo shubayaa biyihii qajaarka. waxaan kaloo kusoo darayaa corn flour ama warango, waxaa taqaanaanba corn flour waaye ama warangada burka xalwada lagu sameeyo. warangada waa midka xalwada loo isticmaalo waaye. xalwo bis lama isticmaalo, waxyaalo badan loo isticmaalaa. kastarka oo kale iyo waxyaalo badan mishaari waa laga dhigtaa, laakiin waa inta badan ana waxa u naqaana warangada xalwada lagu sameeyo. warango waaye af Soomaali ama corn flour. ani boxka kora iga dilaacay marka bacda la ku haystaa warango ayadoo oo boxka, laakiin waxa ku qoran corn flour. hadda u baahanta corn flour dhehaysa, hadda Soomaaliya ka soo gadanaysidna warango dhehaysa. ayadoo la cabirayo ruwac ama beeg-beegna waa la sheegay, laakiin ani midka boxka la isticmaalaa taas weli ma arkin. hadda dabkaan soo saarayaa, dab daciif waa inaad saartaa. kan haddii aad dab weyn saartid wuu kaa gubanayaa because ayada wax yar hadda ani wax badan ma rabo inaan sameeyo, idinka tusaale ahaan idin tusayaa. alaabta kale juice-kan waxaan kusoo darayaa sokor yar. sokorta haddii aad jeclaan waa ka dhaafi kartaa. qajaarka wuxuu zaaid u anfacaya dadka aan biyaha badan cabin, biyo siinayaa. faa'iidooyinkiis inta laguma soo koobi karo. fitamiinaha ku jira, vitamin E laga helaa oo maqaarka u fiican. maasha Allah laga faa'iideysto. hadda kana dabkan soo saarayaa, juice-kana waa soo shiidayaa insha Allah. isku soo laabanayna. asxaabteyda juice-ka waa kana, waa soo hagaajisanay, waa soo shiiday. biyo badan kuma darin, galaas haafkiisa wax ka sii yar aan ku daray, aan ku soo shiiday. maxaa la dhahaa biyo badan haddii aad ku dartid wuu kaa biyo waayaa because asigaa biyo haysto. soomaan biyo badan uu haystaa qajaarka. qajaarka faa'iidooyin badan uu leeyahay. dadka gaaska qabo kale cabitaankiisa wuu u fiican yahay, beerkuu dhaqaa, laga faa'iideysto. kareemkeenina waa kan saana lagu soo baxay. marka isku soo kariyay warangada iyo qajaarkii biyihiisa.
waa kaas kareemka saas ku soo baxay asoo scrubyo laga sameeyayna waa aragteen qajaarka faa'iidooyin badan uu leeyahay maqaarka wuu u fiican yahay waxa hal daqiiqo dhammeena dibka saarneyd kareemka dabkana aad uu gaabnay dabka meeshii yaryar aan weliba kusoo kariyay meelaha digsiyada la saaro gaaska meeshii ugu yaran ku kariyay oo weliba gaaban zaa'id u gaabiyay dabka aad u yareeyay marka dabka u yareey hana ka tagin hal daqiiqo waxaan dhammeeno karsamaa kareemka aniga waa la joogay intaas waa walaaqayay bahashaana u haystaa aan ku walaaqayay marka ha ka tagin haddaad dabka saartid la joog asay waqti badan uma baahna waxaa hal daqiiqo dhammeyn waaye marka laga faa'iideysto asxaabtayda kareemkan wajiga marsanaya wajiga u isticmaalaya hadda idinka tusaale ahaan idin tusaay ma ahan aniga hadda wajiga xulbada iyo qasan aan shala qastay aan marsadaa laakiin idinkana idinkaga faa'iideynay anina waa iska marsanaa dhib ma lahan juiskina waa kan cabitaankii ayaa hadda macalimiintiina idinka dhistaa idinkana dadaala wareengada tii xalwada lagu karinayo waaye burka oo sabuulka laga sameeyay waaye cornflour waaye marka ka faa'iideysi waan asxaabteyda kareema laga dhigan karaa wareengada wajiga way qurxisaa iyadana wajiga liisha kaaga dhiga damarsatid kaligeed xataa damarsatid ama waxyaabo kale ku qasatid saano kale hadaa samaysatidna ka sii fiican qajaarka wajiga aad u qurxiyaa madmadow iyo haaraha iyo waxaas oo dhan oo ka qaadaa ka faa'iideysi waan hadda asxaabteyda باي باي خير بدنا إذا رجعنا يا